السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودر كسو دواذا متكبدا عشرة كسو الصناب برشد اللغة الإنجليزية. طبعا عشر كان وسيمبل باست التنس قيبت اللبات مركا وحو كسو بسنهاي ستيتمنت أما هذا الكو عادي طبعا تنس كان وتنس آت أفضل أنت بدلنا مهمة مركي الاستعماليو hadalka luqada ingiriisiga marka maanta waxaan qaadanaynaa statement dabcan qaybaha kale sida negative-ka iyo question-kana waan soo gelin doonaa marka waxaan rajeynayaa inaad ku taxnaan doontaan marka maxaad u baahan tahay si aad u barato tenniskan ama aad u ogaato waxaad u baahan tahay saddex shay. mada koowaad waa inaad ogaataa tenniskan in loo isticmaalo dhacdooyin dhacay oo waqti hore dhacay oo ficil ahaa markii wixii lasoo dhaafay markii laga sheekeynayo kow in la isticmaalo. marka taas waa inaad horta sida guud aad u ogaataa in tenniskan uu yahay dhacdo lasoo dhaafay laakiin hadda laga sheekeynaya inay tahay inuu ku saabsan yahay mada koowaad. mada labaad waa inaad barataa hab isbedelka ficilada markii tenniskan la isticmaalayo sababtoo ah waxa la soo dhaafay ayaa laga sheekeynaya marka hal isbedelka ficiladan waxa loo qaybeeyaa laba qaybood oo waxay kala yihiin regular iyo regular verbs ama ficilada sida caadada ah isku bedela fudud iyo kuwa ay tahay qofkii inuu xifdiyo ama in badan uu maaragtay ku hadlo ama uu arko si uu u xasuusto. marka labada ficil oo habka isku bedelayaan oo ficilkii present laga bedelayo past loo bedelayo waa inaad maaragtay aad faraha aad ku haysaa ama maskaxda aad ku qabataa. mada saddexaad waad u baahan tahay si aad tenniskan u barato ayaa ah inaad samayn karto jumladaas oo ah statement iyadoo hadal iska caadi ah ama qofka aad wax u sheegayso iyadoo diidmo ah iyo iyadoo su'aala. markaan saddexdan shay waa inaad marka u horeysa aad faraha aad ku qabataa ama aad ogaataa si tenniskan aad u barato. marka tenniska waxaa dhahnay ficilkii waa la bedelayaa laakiin waxay tahay ficilkii hal mar keliya ayaa la bedelayaa waxaa laga bedelayaa past oo markay jumlada ay tahay statement marka ama hadal iska caadi ah. marka waxaa dhahnay only you need to change verbs into past keliya waxaad u baahan tahay ficilada inaad bedesho maaragtay past marka ay jumlada ay tahay statement ama when the sentence jumlada is a statement markay tahay statement. marka the verbs ficilada will not change isma bedelayaan when the sentence xilliga jumlada is ay tahay negative or question marka jumlada isma bedelayso markay negative iyo question ay tahay but laakiin will remain as infinitive form presence. marka waxay ku sugnaanaysaa habkii asalka ahaa ee infinitive-ka ayay ku sugnaanaysaa ama presence jumlada ama ficilka aan idhaahda marka ay tahay su'aal iyo muuqaalo kale ayaan ku qeexi doonaa ama habka loo isticmaalayo laakiin muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay habka statementiga ama markii uu qofka hadal caadi ah ku hadlayo habka uu isticmaalayo ayaan marka u qeexi doonaa. marka mid koowaad oo tusaalaha ah waxay tahay we ayaa laga hadlayaa marka we waa waxay ka mid tahay waxyaabaha jamca ah ama maaragtay dadka pronounska jamcaga ayay tahay. we went waxaan aadnay to Spain ayaan aadnay for our holidays maalmaha fasaxeeni ahaa Spain ayaan qabanay. marka halka waxaad ugu jeeda ereygii wuxuu ahaa go laakiin hadda wuxuu isku bedelay went marka went ayuu isku bedelay. marka we went waxaan aadnay to Spain ayaan aadnay ama aan qabanay our holidays maalmaha fasaxeeni ah. they got home iyagu waxay maaragtay ay yimaadeen ereyga get ayuu ahaa got ayuu isku bedelay. marka they got home iyagu ay yimaadeen very late xilli aad u dambe ayay guriga yimaadeen last night xalay. marka when I was a child or when I was a boy aan idhaahda
marka aniga aan ahaa wiil ereygaadu was waa naftirkiisa waa baasti oo maaragtay when I was a boy markaan wiil ahaa I worked waxaan socday ereyga workedna waa isagana waa past meel ayaan socday to schoolka every day maalin waliba marka we swam waan dabaalanay a lot in badan while we on holiday xilligii aynu fasax ku jirnay waxaynu ahayn kuwa in badan dabaasha ayuu leeyahay marka they were always enjoyed visiting their friends had iyo jeer iyagu waxay ahayn kuwa ku raaxaysta booqashada asxaabtooda marka I lived abroad for 10 years anigu waxaan ku noolaa waxay ka mid tahay iyadana marka pronouns-ka waxaan ku noolaa dibadda for 10 years 10 sano ayaan dibadda ku noolaa marka asigana waa past laakiin wuxuu ka mid yahay waa regular verbs marka ereyada had sida caadiga isku bedela ereyga xiga waa he enjoyed asagu wuxuu ku raaxaysanayaa ama wuxuu ku raaxaysanayaa yiraahdo being a student inuu arday ahaanshaha ayuu ku raaxaysanaya marka ayuu ku raaxaystay she played iyadu waxay ciyaartay a lot in badan for tenniska ciyaarta la yiraahdo ayay in badan ciyaartay when she was younger xilligii caruurnimadeeda I met waxaan la kulmay my wife xaaskeyga ayaan la kulmay a long time ago sanado badan ka hor marka halkan wuxuu ku qeexayaa ereygii mid wuxuu ku qeexayaa marka a long time waqti hore ayuu ku qeexayaa ago sidoo kale waxaa lagu qeexi karaa waqti marka waqti ayaa lagu qeexi karaa wuxuu yidhi I met waxaan la kulmay my wife xaaskeyga in 1983 marka tusaalayaashan kalena iyaguna waa tusaalooyin lamida last night xalaydii ama xalayay habeenkii tegey I played waxaana ciyaaray my guitarkeyga loudly si Sarah and the neighbors maaragtay dadka dariska ahi complained way cabanayeen marka it rained way roobaysay ama roob ayaa daay yesterday shalay marka Angela Jolilaawi watched waxay daawatay TV all night habeenkii oo dhan John wanted to go to school to the museum John ninka yiraahdo wanted wuxuu aaday wuxuu doonayay to go inuu aado to the museum marka museumka ayuu doonayay marka inuu aado marka waxaa u jeedin ereyada maaragtay isbedbedelkoodii iyo ficilada habka isku bedbedelayaan marka waxaa loo qeybay ayaan dhahnay laba qeybood oo linkigan ayaan soo gelinayaa linkiyadan labadan linki ayaan soo gelinayaa sidaas ugula soo degi kartaan habka isku bedbedelayaan ficilada labadaba kuwa regularska iyo kuwa regularka labadaba qaabka isku bedbedelayaan sidaad ugula soo degi kartaan internetka marka isbedelka ficilada ayaa ugu muhiimsan sida kale tenniskan aad buu u fudud yahay marka muuqaal kale intaan ku kulmi doono dabcan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo